difaaca ayuu ka ciyaari jiray, waxa uu ahaa mid dagaalama, been ayuu u sheegay tababarihiisa. maanta waa xidig ka tirsan kooxda Manchester United. waa kuma ciyaaryahankaas? muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay, fadlan subscribe dheh, furo gambalaalka si aad u hesho warbixinada aan halkan soo gelino iyo xogaha ka qarsoon. u sheer garay asxaabtaada si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adiga oo kale. markii uu daayarta ahaa, waxa uu jeclaa inuu ka ciyaaro difaaca midig, sababtoo ah waxa uu ahaa mid xamaasad jecel inuu dagaalamo, taakooyinkana uu ku qabto ciyaartooyda ka soo horjeeda. tababarihiisii waqtigaas ayaa uu u riixay inuu daafaca soo galo oo uu ka garab ciyaaro weerarka una dhaqaaqo dhankaasi. tababarihiisii ayaa u sheegay in haddii uu doonayo inuu noqdo ciyaartooy sare inuu ka ciyaaro daafaca, haddii uu doonayo inuu qadka dhexe ka tegi karona, balse daafacii ayuu ka dhago adeegay ciyaaryahankaasi, waxaana uu doortay inuu qadka dhexe hore ugu socdo. xidiga Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa ka hadlay waayihiisii ciyaareed iyo caruurnimadiisii, booskii kala duwanaa uu ka soo ciyaaray iyo sidii ugu dambeyntii uu ku noqday kubad sameeyaha maanta uu yahay. 26 jirkan oo ka hadlayay una hadlayay UTD broadcast ayaa yiri, difaaca dhexe ayaan ka ciyaari jiray inta ugu badan markii aan kubadda cagta bilaabay. daafaca dhexe ama daafaca midig ayaan ka dheeli jiray. anigu waxaan jeclaa inaan daafaca midig ka ciyaaro, sababtoo ah waxaan aad ugu dhiirigeli jiray gardaro badan, waxaana jeclaa in aan jalaafooyinka ku qabto ciyaartooyda kale iga soo horjeeda. markii aan ahaa daafaca dhexe, waxa aan ahaa mid xor ah una diyaarsan inuu garbaha ka raacdo haddii aanay difaaca dhexe goobtooda aysan joogin. dhab ahaantii waxaan ku fiicnaa, waxaan haystay tababaro igu yidhi, haddii aad doonayso inaad ciyaartooy sare noqoto, waxaad u baahan tahay inaad ka ciyaarto difaaca dhexe. haddii aad doonayso inaad ka ciyaarto difaaca dhexena, waxaad noqonaysaa midka ugu wanaagsan kubadda cagta, ayuu ii sheegay tababarahayga. waxaan u malaynayay in aan qaldanaa, sababtoo ah waxaan la yaabanaa inaan daafaca dhexe ka sii wanaagsan lahaa, laakiin waqtigaasi maan jeclayn inaan halkaa ka ciyaaro, balse qof waliba waxa uu leeyahay waxaad ahay difaac wanaagsan. waxay ii sheegeen inaan ahaa mid caqli badan, inaan dabooli jiray labada dhinac, difaaca bidix iyo ka midigba. kadib waxaan fursad u helay inaan la ciyaaro koox weyn, waxaana ku yidhi tababaraha, ma doonayo inaan mar dambe ka ciyaaro daafaca dhexe. haddii aan ka ciyaaro daafaca, waxa ay dib igu noqonaysaa kooxdii aanu igu da'yar ahayna oo aan dhexda ugu ciyaaro. markii aan ku biiray kooxdii, tababaraha ayaa ii sheegay liiska kooxdiisa, waxa uuna arkay in boos ka bannaan uu yahay, isaga oona leh ma hayso weeryahano, anigana uma jawaabin, ayuu yidhi ciyaaryahan Bruno Fernandes. waxaan moodayay inaan difaaca dhexe tahay, kadib waxaan u yidhi maya, halkaa ka ciyaar, waxaana weerarka halka tijaabada ayuuna tababaraha igaga qaaday. 2 gool ayaan dhaliyay, waxauna igu yidhi waa hagaag, waad ka ciyaari kartaa weerarka. sidaas darteed hal ciyaar ayaan weerarka ka dheelay. kulankii xigayna waxaan ahay nambar 9 ah oo been loo adeegsanayay. weeryahan kale ayaan la shaqeeyay, kadib waxaan ku noqday nambarka 10aad iyo nambarka 8aad. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xogaha ka qarsoon kubadda cagta. muuqaalka xiga inta aan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadino.